بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 453 عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله. رواه أحمد، والحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 19 bishii lixaad jamadu thani sanadka 1442 isla markaana waafaqsan kowdii bishii labaad ee sanadka 2021. awalan darsiga inteena gelin ka hor waxaan baraarujinayaa walaalaha shalay darsigaanu qaadanay xadiidkii xagga qoraalka laba meelood baa khada kaga jiray. walaalaha khayr allaha siiya qaar ka mid ay ugu baraarujiyeen, aniguna waan arkay markii dambe waana saxay anu xaggayga, laakiin waxaan rajaynayaa qof kasta inuu saxo. labada meel xadiidku wuxuu ahaa shalay qaadanay xadiidka abi saciid alkhudri: ina shaydaana qaala wacizatika ya rabbi laa abraxu uqwi cibaadaka maa daamat arwaaxuhum fi ajsaadihim faqaala rabu wacizatii wajalaali laa azaalu akfiru lahum ma stakfiruunii. labada meeloodoo khada uu kaga jiray ina shaydaana qaala wacizatika, wacizatika weeye maarata waxaanu akrinay wacizika oo taadi baanu ka tagnay, marka wacizatika wey. khada kale labaadna wuxuu ahaa faqaala rabu wacizatii wajalaali laa azaalu akfiru lahum. laa azaalu laamkii laadii markaanu qoray azaalu ficilki waanu ka tagnay, maxaa markaa qoray laa akfiru lahum. idan waa khada madbaciga dacfiga bini aadamkay ku tusinaysa. idan faqaala rabu wacizatii wajalaali laa azaalu akfiru lahum mastakfiruuni wey. idan intaasa idinku baraarujinaya, qof kasta waa inaad saxdi. waxaan idinka rajaynayaa wixii noocaas oo kale aad aragtaan igu soo baraarujiya. waxaa laga yaaba mararka qaarkood in aanoo degdegahay intaan qoro marka aana dib u fiirinin. intaa markaan ka tago ikhwatii filaahi, waxaanu ku jiray mawduuceeni qiimaha badnaa ee ku saabsanaa fadaa'il istikfaari wa fawaa'iduha. istikfaarta fadaa'isheedii iyo fawaa'ideedii waxaanu soo qaadanay 8 xadiid, 10 baanu ku xidheennaa baan nidhi. maanta xadiidkaanu qaadanaynaa 9 kuwa berri baanu dhammaystiraynaa insha allahu tacaala. saanu dhaqankeennu u ahaa xadiidka ta'siilintiisa. xadiidkan imaam axmed baa kitaabkiisa musnadka ku soo saaraya. xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira, raawi mutakalamun fiihi ayaa ku jira, laakiin bacdu almucaasiriin iyo culamada muxaqiqiinta musnad axmed taxqiijiyey way xasaniyeen xadiidka. waxay dhahen xadiidka bimajmuuci duruqihi, dariiqooyinkiisa jamciskooda laisu keeno iyo shawaahid uu leeyahay buu xadiidku xasanun ligayrihi ku noqonaya. marka shawaahiddu waxaa ka mid a xadiidka kusuufki, salaatulkusuufki, nabigu markuu tukaday dadkiina uu wacdiyey, hadalkiisa waxaa ka mid ahaa faidaa ra'aytum minha shayئa fafzacuu ilaa dikri اllaahi fafzacuu ilaa dikrihi wa ducaa'ihi wa istikfaarih. qoraxda madoobaadkeedii wixii lamidka ah haddii aad wax ka aragtaan, fafzacuu u argagaxa ilaa dikrihi, ilaahay dikrigiisa iyo wa ducaa'ihi iyo wa istikfaarihi. xadiidkaasna shaahid buu u noqon baa lii, oo ah haddii aad arrimaha la timaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idin badbaadin weeyaan baa li. iyo aayaadka qur-aanka, aayad qur-aan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay inay istikfaartu ay tahay maanic ka mancinaya cadaabka ilaahay inuu ku dhaco dadka muslimiinta. wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun. ilaahay ma cadaabahayo adoo la jooga nebi maxamed oo ummadaada, mana cadaabahaya iyagoo istikfaarsanhaya. waa kii aayaddahayd. athar abu hureyre ka sugnaaday baa wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda nebi maxamed laba amaan oo cadaabka ilaahay ka badbaadiya fi dunya ayaa ilaahay u soo dejiyey, u keenay, yaa ilaahay u yeelay. labadaa amaan ee maarata ay kaga badbaadhayaan cadaabki, mid way tagtay, mid baa u soo hadhay buu yiri.
midda tagtay waxaa labada amaan waxay ahaayeen nabi maxamed joogitaankiisa intuu la joogo inaana adduunka lagu cadaabaynin. ta labaadna waxay ahayd buu intay istikfaarsanayaan. madat maartay alula mid baa ka tagtay, madat maartay ixdaahuma midood way tagtay buu yidhi oo nabi maxamed geeridiisii weeyaan, waa dhintay waa tegey. idan istikfaarti baa usoo hadhay wey. idan istikfaartu waa maanic iyo maaragtay badbaado lagaga badbaado cadaabka ilahi fi dunya walaakhira. xadiidkana fadaalat ibn cubayd alansaari saxaabiga jaliilka radia allahu canhu can inabiy sala allahu alayh wasalam anahu qaala wuxuu yidhi nabigu alcabdu addoonku aaminun waa aamin weeyaan min cadaabillaahi cadaabka ilaahay buu aamin ka yahay ma stakfara allaha intuu ilaahay istikfaar weydiisanayo dembi dhaaf. alcabdu aaminun aamin weeye min cadaabillaahi buu aamin ka yahay ma stakfara allah. idan addoonku rag iyo dumar wuxuu doonaa ha ahaado amni iyo ammaan buu kaga jiraa cadaabka ilaahay ku dhicitaankiisa intuu istikfaarsanayo. halkaasaa lagu xidhay intuu istikfaar la imanhayo cadaabka ilaahay iyo ciqaabtiisa aamin buu ka yahay. idan waa xadiid cadiima weeye kuna tusinhaya isla markaa faa'iidada ay leedahay istikfaarta iyo fadaa'isheeda. idan halka waxaanu ka qaadanaynaa istikfaarta fawaa'ideedii fadaa'isheeda waxaa ka mid ah hiya maanicatun min cadaab illah, yani cadaabka ilaahay ayay addoonka ka mancinaysaa. maanicatun min cadaabillah can ilcabdi maartay min cadaab illah, cadaabka ilaahay bay addoonka ayay ka badbaadinaysaa. alcabdu aaminun aamin weeyaan min cadaabillaahi cadaabka ilaahay buu aamin ka yahay ma stakfara allah. istikfaar iyo dembi dhaaf intuu ilaahay weydiisanayo cadaabkii alle aamin buu ka yahay. idan khulaasadii nuxurka xadiidkeenna maanta uu maarata xumbaarsan yahay waxaa weeye asbaabaha cadaabka ilaahay lagaga badbaado adduun iyo aakhiraba kathratu listikfaar wey. istikfaarta oo la badiyo wey. istikfaarta oo la badiyo fawaa'idaasay leedahay. ibnu qayim wuxuu leeyahay istikfaarta cadaabka ilaahay adduun iyo aakhira kaa badbaadinaysa waa istikfaar shuruud leh. qalbigaadu waa inuu xaadir yahay markaad istikfaarsanaysa, waa inaad ikhlaas iyo daacadnimo aad u istikfaarsanaysa, waa inaad maaragtay dunuubta aad ku jirtana waa inaad ka foqday adoo dembi dhex fadhiyo carabkan dhaqaajin oo maarata istikfaar baan la imanaya waxba ma anfacaysu yidhi. waa inaad dembigii aad ku jirta ka foqdi, qalbigaadana uu xaadir yahay, ikhlaas iyo daacadnimana aad u samaynaysa. markaas istikfaartaada istikfaar ilka leh oo wax qaban karta ay noqonaysaa buu yidhi, oy kaa difaacaysaa cadaabka ilaahi. laakiin adoo macaasidii dunuubtay ku dhex jira istikfaar baan la imanhayaayo waan ku badbaadi lagama yeelhayo. idan haddaad rabta inaad ku sifowda xadiidka alcabdu aaminun aamin weeye min cadaabillaahi cadaabka ilaahi ma stakfara allaha inaad ku sifowda haddaad doonaysa facalayka bilistikfaari maca alikhlaasi wa maca tarki dunuub walmacaasi. ikhlaas adoo ku darahayo daacadnimo iyo dunuubta inaad ka tegaysa ood ka baxaysa. idan ikhwati fillah xadiidkaa gaaban ee maanta aanu qaadanay wuxuu noo faa'iideynayaa istikfaarta inaanu badinno. kulamaa istikfaar badan oo daacadaan la nimaadno kulamaa cadaabka ilaahay fi dunya walaakhira waan ka badbaadayna. ilahay subxaanahu wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tusa nuguna irsaaqo xaqa raacitaankiisa, inuu ilaahay naga dhigo kuwa istikfaartiisa cadaabka ilaahay kaga badbaada, cadaabkiisa kaga badbaada, aaminna kaga noqda marka kaga nabadgala cadaabka ilaahay istikfaartiisa kaga nabadgala. xadiidka hal mar baan dib yaan u celin yaan akhrinayaa. alxadiidu 453 can fadaalat bni cubaydin alansaariyi radia allahu canhu can الnabiy sala allahu alayh wasalam anahu qaal alcabdu aaminun min cadaab illahi ma stakfara allaha rawaahu axmed walxadiidu xasan bmajmuuci duruqihi wa shawaahidihi. hada wsala allahu calى nabiyina muxamadi wcalى alihi wasaxbihi ajmaciin. wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu.